وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. sidee u kasban kartaa qalbiga qofka aad jeceshahay? waa qaybtii labaad oo aan cinwaan uga dhigay qaab noocee ayaad u bandhiganaysaa jacaylka aad qof u qabtid. inta aan la gaarin kulanka waxaad samaysaa diyaargarow xagga maskaxda iyo jirka. qalin iyo warqad soo qaado, waxaad noqotaa 3 eray oo keliya oo aad qofkaasi jacaylkaad ugu bandhigan lahayd. waxaad isweydiinaysaa, cabsi ayaa igu jirta, sidee ugu dhawaaqi karaa ereyadaasi? kaalay cabsida iska tirtir oo waxaad samaysaa ku celcelin fara badan. muraayadda hor istaag, kadibna ku dhawaaq ereyadaasi weliba adigoo ficil raacinaya. hadda saacaddu waxay soo dul istaagtay xilligii la ballamay, adigana waxaad iska xaadirisay goobtii aad kuda kulmi laheedeen. wuu yimid ama way timid, iswaraysi caafimaad iyo sheeko kadib. hal mar waxaad gebi ahaanba joojisaa hadalka, waxaadna eegmo ku bilowdaa qofka indhihiisa, adigoo si naxariis iyo dareen ay ka muuqato u fiirinaya. ka hor muuqo qofka hortiisa, kadibna faraha fiidiyooda si tartiib ah u qabo. eeg indhihiisa ama indhaheeda kuna dheh, waan ku jecelahay, noloshayda qiimo ayaad ku leedahay, adigana waxaan kaa rajaynayaa inaad iga aqbali doontid. aamusnaan kadib, inta uusan kuu jawaabin qofka wejigiisa waxaad ka dheehan doontaa isku dhexyaac. si aan ka fiirsi lahayn ayuu kugu jawaabi doonaa jawaab aad ku faraxdid, waxayna noqon doontaa, anigaba waan ku jecelahay, waan kaa gadoomay jacaylka aad ii bandhigatay, waxaana beeri doonaa geed ubax ah, si wadajir ayaana u waraabin doonaa. kadib habsii oo ha ka foqin ilaa wax dhan 20 sekin. kadib dhabanka ka shumi ama ka dhunko, waxaadna ku tiraahdaa, maanta waan faraxsanahay, ileen waxaa lagaa gadoomay oo lagaa aqbalay jacaylkii aad isaga ama iyada aad jeclay. hadda waxa aad bilaabaysaa saanqaad kii ugu horeeyey ee aad rabtid inaad ku degtid qalbiga qofkaasi. cinwaanka xiga waxa uu noqonayaa, sidee u waraabinaysaa geedka ubaxa jacaylka aad wada beerteen. haddaba haddii muuqaalkani uu ku cajabgeliyey, janalkana aadan ku soo birin aad ku cusub tahay, ku soo biir oo subscribe saar, laagna ku qabo, la wadaag asxaabta aad la jeceshahay inay ka faa'iidaystaan. waad mahadsan tahay.